إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ولا ليال وحن إن شاء الله هدي الله إدمه قلبت وقلب أربعة bisha dilxijana ay 5 tahay 1429 waxaan biidni illaahi tacaalaa halkan ka jeedinaynaa muxaadaro ciwaankeedu uu yahay alfurqaan bayna ahli sunnati wal ashaacira furqaanka waxaa la yidhaah kullu maa yufaraqu bayna alxaqi waalbaatil wax kasta oo lagu kala saaro xaqa iyo baatilka furqaan ayaa la yidhaahdaa haddana macnahan ula jeedaa waxa weeye xujada ama burhaanka lagu kala saarayo maanta ahlu sunna waljamaaca iyo ashaacira oo ahlulbidaca ka mid ahon ahlu sunnaha ka mid ahayn waxay noqon doontaa haddii alla idmo muxaadaradanu waqafaad 5 ugu horeyn waxaan hormari doonaa tacriifka ahlu sunna waljamaaca siday a'imadii ahlu sunna waljamaaca u qeexeen qur-aanka iyo sunnadana ay u caddeeyeen ayaan ku qeexi doonaa si ay u caddaato horta cidda ay tahay ahlu sunna waljamaaca markaan taas qeexno oo qofka ay u kala caddaato qofku ahlu sunna waljamaaca wuxuu ku noqon karo iyo waxa uu uga bixi karo ahlu sunna waljamaaca oo ahlulbidac uga mid noqon karo waqfada koowaad oon ku xijinayna waxay noqon doontaa ama haddaan midaas hore waqfadii koowaad ka dhigno ta labaad waxay noqonaysaa masdaru talaqii cinda ahli sunna waljamaaca ومصدر تلاقي عند الأشاعرة مصدرك أما إيشا أي وحكا قاتان أهل السنة والجماعة ويدين كودا كقاتان إيوه مصدرك إيا ميشا أي أهل بدع وحكا قاتان أما أشاعرة أي وحكا قادته سلام الله بعضا كدقينا أهل السنة والجماعة حجدها لكي كقاتان أهل الشاعرة سهل كي قاطن حنوغاد دونا أهل السنة والجماعة إني كتاب كي السنة سيدي الصحابة أفهمين وقاطن وحنوغاد دونا الشاعرة إني عقائد كودا كقاطن عقلك سائل كاسنا وحن كسور نقلد دونا هدي الله إدم أهل السنة أنا مركان قيحينو كتبها أهل السنة والجماعة كسور نقلين الشاعرة وحي قبان مركان شيئين إن كتبها الشاعرة كسور نقلين kama soo naqlayno kutubaha ahlusunnada sababtoo waxa weeyaan qofka khasmiga ama kula doodaya wuxuu dhihi karaa sidaan culimada ahlusunna ayaga yiriye ashaacira hadda ma qabtay maxaa cadayna inay ashaacira qabto si warkaas uu u dhamaado kutubahoodan ka soo naqlayno inay aqliga ka qaataan aqeedada misalada saddexaad oo aan ka hadli doona waxay tahay الإيمان عند أهل السنة والجماعة
iimaan maxay u yaqaaniin ahlu sunna waljamaaca iimaan maxay u yaqaaniin waa asal weyn oo usuusha ahlu sunna waljamaaca iyo ahlubidca ku kala baxan ka mida markaan ahlu sunna caddayno waxay iimaan u yaqaaniinna iimaan maxaa loo yaqaan cinda alashaacira oo ashaacira maxay iimaan u taqaan masaladaasaan ku xiji doona iimaan markaan qeexayno cinda ahli sunna waljamaca waxaan kasoo naqlaynaa kutubaha ahlu sunnaha iyo a'imadii salafu saalix iyo a'imadii dariiqaas maray ee salafka raacay ashaacira waxay iimaan u taqaan markaan qeexaynana kutubaha ashaaciraan kasoo naqlaynaa kutubaha iyagu akristaan oo ay leeyihiin oy qorteen oy ka diinka dhigteen waxa ku qoran masalada afraad oon geli doonaa waxay tahay kalaamka alle qur-aankan aan akrinayno caruurteenna barno oon salaada ku tukanno oo aan akrino oo kutubta noogu qoran oon qalbiga ku xifdisannahay muxuu yahay ma makhluuqa mase ma aha ahlu sunna waxay ka qabaanaan kasoo naqli doono kadibna ashaacira waxay ka qabtaan kasoo naqli doono qur-aankan aan akrisanayno ahlu sunnaha kutubtoodan kasoo naqlaynaa waxay qabaan ashaacirana kutubtoodan kasoo naqlaynaa waxay qabaan mas'alada shanaad ee aan ugu daba marinayno waxaan ka dhigaynaa insha allah a'imadii sunnada ee caddeeyey inaan ashaacira ahlu sunna ka mid ahayn oo markay tirinayaan firaqda ahlulbidaca ku daray wax ka mida ayaan shantaas oo mid kaliyahoo ka miduhu ay ku filan tahay in la ogaado ashaaciro inaysan ahlu sunna ka mid ahayn waxaa nasiib darro ah in maanta lagu shakiyo ashaaciro ahlu sunna ma ka mid tahay mase ka mid ma ahan su-aal ahaanba inay u timaado taasaa dhibaata laakiin waxaa keenay waxyaalo badan waxaa keenay ashaaciradoo waqtiyaadkii dambe aada u faaftay sida imaamulmiqrizi uu caddeeyey iyo a'imo kaleba waxaa caddeeyey a'imo aada u fara badan sababaha keenay waxaa ka mid ah inay ayagu naftooda ku magacaabaan ahlu sunna waljamaca inay isku magacaabaan waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah in badan inaan si burhaan iyo xujo ah aan dadka loogu caddayn ashaacira waxa ay tahay iyo inta asal iyo inta qaacido ay ku khilaaftay ahlu sunnaha laakiin taas insha allahu ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa a'imo ehel u ah inay u istaagi doonaan haddaba waxa ugu horeeya ee aan ku bilaabayna waxa weya ahlu sunna waljamaaca yay yihiin ahlu sunna waljamaaca waa dadka sunnada nabiga sala allahu calayh wasalama ku dhegan ee raaca ee waxa ay caqiideynayaan kitaabkiiyo sunnada ku dhisa waxa ay ku qowlayaan ee dikri iyo keyrkiis ah ee ay ka diin dhiganayaan kitaabka iyo sunnada ku dhisa waxa ay ku cibaadaysanayaan acmaashana kitaabkii sunnada ku dhisa ee nabiga ka waafaqa caqiidada iyo aqwaasha iyo afcaasha ay ilaahay ugu dhowaanayaan dhammaan sidaasna a'imada sunnada ayaa ku qeexay oo ku caddeeyey waxaan soo qaadanaynaa a'imada sunnada imaam ka mid ah ee sidaas ku caddaynaya waa alimaam qawaamu sunna abulqaasim altaymi alasbahani wuxuu yidhi fa qowluhum fulaanu cala sunna wa min ahli sunna ay huwa muwaafiqun litanziili wاlahar fi lficli wاlqowli lianna sunnata laa takunu maca mukhaalafati illahi wa mukhaalafati rasuulih wuxuu yidhi marka la leeyahay hebel waa ahlu sunna hebel sunnaduu ku sugan yahay hebel ahlu sunnuhu ka mid yahay macnaheeda waxa weeyaan qur'aanka iyo xadiidku waafaqsan yahay wuxuu ku waafaqsan yahay ficilka iyo qowlka ficilka waa acmaasha jawaarixda qowlkana waa qowlka qalbiga caqiidada ah iyo qowlka carabka marka caqiidada iyo qowlka iyo acmaasha intaba qur'aanka iyo sunnadu ku waafaqsan yahay macnaheeda waa sidaas qofkii aan sidaas ahayn ahlu sunna lama dhihi karo maxaa yeelay wuxuu yidhi qofku hadduu ama caqiidada ku khilaafo ama qowlka ku khilaafo ama acmaasha ku khilaafo nabiga oo uu qur-aankii sunnada khilaafo lama dhihi karo ahlu sunna maxaa yeele wuxuu yidhi sunna ma u sugnaa karto qofka asagoo ilahay iyo rasuulkiisa khilaafsan hadalkaas wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa la yidhaha alxuja fi bayaani almaxaja
juska labaad safxada 411 sidoo kale xaafid ibnu rajab ayaa sidaasoo kale u qeexay oo ahlu sunna wal jamaaca waxa loola jeedo u cadeeyay wuxuuna yiri wa sunnatu hiya tariiqul masluuk sunnadu waa wadada la maro fayashmalu dhalika at-tamassuka bima kana alayhi huwa wa khulafaa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal-a'mal wal-aqwal wa hadhihi hiya sunnatul kamila wuxuu yiri sunnadu waxay horta waa dariiqa la maro waxayna kulminaysaa ku dheganaashada lagu dhego wixii uu ku sugnaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisi khulafaa ur-raashidiinki oo ah aqeedooyinki acmaashi iyo aqwaashi marka sunna marka la yiraahdo waa qofka ku waafaqa nabiga iyo saxaabadiisi aqaaidki acmaashi iyo aqwaashi waana sunnada kaamilka sidaas markaasuu yiri wali hada kana salafu qadiman la yudliquna isma sunnati illa ala ma yashmalu dhalika kullu saastarteeda salafkii hore isimka sunna kuma idlaaqi jirin oo ma dhihi jirin waa ahlu sunna illa saddexdaas wax kulansaday baahan macnahaasna waxa laga wariyay Hasan Basri iyo Awzaa'i Fudayl ibn Iyad laakiin wuxuu yiri culimada mutaaqiriinta gobol kamid ah ayaa ismu sunna waxay ku qaasaan oo mararka gobol yiraahdaan sunna waxa ku tacalluqa aqeedada maxaa yeelay waa asalkii diinta wal mukhalifu fiha ala qadarin adim wa asalkii diinta qofka aqeedada khilaafana qatar weyn ku sugay hadalkaas wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la Jaami'ul Ulum wal Hikam markuu sharxayo xadiiska 18 hadaba maxaad soo ogaatay marka ahlu sunna wal jamaa qofka noqonay ama kooxda noqonaya weey waa cid kasta ama qof kasta ama koox kasta oo aqeedadooda iyo aqwaashooda iyo acmaashooda waafajiya kitaabka alle iyo sunnada nabiga siday u fahmeen saxaabadi ridwaanullaahi calayh sidaas weeyaan qofku marka yaa ahlul bid'ah noqonaya taas cagsigeed qof kasta oo waxa weeyaan aqeedadiisa ama aqwaashiisa ama acmaashiisa aan kitaabka sunnada ku dhisin qofkaas ahlul bid'ah noqonaya kaas ahlul bid'ah noqonaya taasuna waa waxa qofka ama kooxda ay ahlu sunna ku noqon karaan iyo waxay uga bixi karaan qof kasta oo kitaabka sunnada wax walba ka hormariya ee ayaga ka diin dhigta ee qowlkooda iyo aqeedadooda iyo amalkooda waafajiya waa ahlu sunna qof kasta ama koox kasta oo kitaabka sunnada haday ka hor yimaadaan aqligooda aqliga qaata kitaabka sunnada ka taga waa ahlul bid'ah koox kasta ama qof kasta oo siyaasadda haday ka hor timaado kitaabka sunnada ka taga siyaasadooda qaata aqligoodu tusay waa ahlul bid'ah qof kasta ama koox kasta oo dawqooda ka hormariya kitaabka sunnadana waa ahlul bid'ah qofka haddii uu usuusha ahlu sunnaha waafaqsan yahay laakiin mas'ala farca ama juz'iya uu ku gafo asagoo asalka waafaqsan sida hal sifaad alla kamida inuu awilo kale asagoo asalku yahay dariiqi ahlu sunnaha iyo sifaadda in la sugo ahlul bid'ah kuma noqdo laakiin mas'aladaas waa ku gafaa leeyahay mar hadduu asalkii ku waafaqsan yahay mas'aladaas waxa cadeeyay ayma fara badan waxa kamid ah imaam Shaadibi wuxuu yiraahdaa al-mas'alatu al-khamisa وذلك أن هذه الفرقة إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها تفرق الشيعة وغيري الإمام الشاطبي أرنتاس وحوي فرقوين كأهل البدعة waxay ku noqdaan firqooyin ahl bid'ah inay khilaafaan firqada naajiyada ah oo ay ku khilaafaan macna kulliyo diinka ah ama qaacido qawaacida sharciga kamida asal inay ku khilaafaan ma ku noqdaan ahl bid'ah inay ku khilaafaan juz'iyaadka kamida ama farac shaad hayla farac shaad tafarruq iyo shiic kama yimaado ee wuxuu ka yimaadaa tafarruqu marka la khilaafo qaacido kulliya amar kulli ah arin labaad uu sheegay arintii koobaad waa maxay asal iyo qaacido asal ah marka uu qofku ama kooxdu ay ku khilaafaan diinka ahlul bid'ah ka mid noqdo laakiin mas'alu ku gafay waahid ah isagoo asalku caafimaad qabo waa gafaa leeyahay ahlul bid'ah kuma noqdo shay labaad uu keenay oo kooxu ku noqon karto ahlul bid'ah sunnah uga bixi karto wuxuu yiri wayajri majra alqaa'idati alkulliyah kathratu aljuz'iyat hadii furuuc farabadan uu qofku ku khilaaf ahlu sunnahana ahlul bid'ah ku noqon karaan kooxdii ku khilaaftaan ahlul bid'ah ku noqon kartaa
hadalkaas hadal aad u cajiib badan weeye oo dheer wuxuuna ku yidhi kitaabkiisa la yidhaha alictisaam oo imaam shaadibi uu iska leeyahay juska 2 safxada 712 ilaa 13 713 haddaba waxaan ogaanay halkaas ahlu sunna waljamaaca yaa ah qof kasta ama koox kastaoo kitaabka iyo sunnada caqiidadooda iyo qowlkooda camalkooda ku dhista wey siday saxaabada u fahmeen u raaca yaa ah ahlulbidac ahlulbidac waxaa ah koox kasta ama qof kasta oo caqligiisa ama siyaasadiisa ama dawqiisa ka hormaray kitaabkii sunnada maxaa looga baxaa ahlu sunna waljamaaca waxaa looga baxaa asal usuusha ka mida diinta in lagu khilaafo ama ama lagu khilaafo furuuc aada u fara badan ahlu sunna kitaabka iyo sunnada inay ku dhisaan caqiidadooda iyo diinkooda ilaahay baa amray nabigaana amray sala allahu alay wasalam ahlu sunna waljamaaca waxay dadka uga socmeen ahlulbidaca ah inay caqiidadooda iyo qowlkooda iyo camalkooda ku dhisaan kitaabka iyo sunnada siday u fahmeen saxaabada taabiciyaalka 3 qarni oo nabi maxamed uu khayrka iyo fadliga uga maqaati kacayna oo yiri khayru naasi qarni thumma alladina yalunhum thumma alladina yalunhum waxa ummadda uu khayr badan qarnigayga noolnahay waxa ku xiga qolada ku xigta saddexdaas siday kitaabkii sunnada u fahmeenna inay kitaabkii sunnada u qaataan sidaas ilaahay baa amray nabigaana amray sallallahu alayhi wasallam in quraanka iyo sunnada la qaato siday saxaabadu u fahmeen loo qaato rabbi baa amray rabbul alamin wuxuu yiri ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun raaca diinta xaqiina loo soo dajiyay rabbi xaqiisana laga soo dajiyay waa quraanka iyo sunnada labada wahyi labada taas raac wala tattabi'u min dunihi awliya wahyiga xagga rabbi ka soo degay ka sokay awliyaha raacinina maxaa loola jeeda awliyaha raacinina wuxuu yidhi alimaam alqurdubi man radiya madhaban fa ahlu dhalika almadhabi awliyaahu qofku madhab hadduu ka raali noqdo oo uu ka diin dhigto dadka madhabkaas haystaa awliya u ah qofkii markay kitaabka iyo sunnada wax khilaafsan ka madhab dhigtaa dadka madhabkaas awliya ka dhigtay allah iyo rasuulna kama weli dhigan qofka kitaabka iyo sunnada siday saxaabadu u fahmeen u raaca laakiin qofkaasu ilaah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintu ka weli dhigtay ilaahi weyna subxaana wa tacaala ayadaas wuxuu ku caddeeyey waxyiga rabbi xaggiisa kasoo dego qur-aanka sunnada in la raaco ittabicu maa unzila ilaykum maa unzila wixii la soo dejiyey oo ah alkitaab wasunna sida imaamu ibnu kathiirna uu ku fasiro alkitaab wasunna inay yihiin in saxaabada la raacana ilaahi weynaabaa amray ilah wuxuu yihi subxaana wالsaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina walansaar wاladiina اtabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilaahi weynaa subxana wa tacala wuxuu yihi dadkii diintan u hormaray horreeyey ee muhaajiriin iyo ansaar ah iyo dadka ayaga raaca ee wanaagii ku raaca dadkaasa ilaahay raalli ka noqday ayaguna allay raalli ka noqdeen ilaahay weynaa dadkaas ayuu janno u diyaariyey oo janno gelinaya marka ilaahay wuxuu raalli ka noqdaa oo jannadiisa geliyaa waa dadka raaca saxaabada marka maxaa labada aayadood markii la isku geeyo noo soo baxay in la raaco qur-aanka iyo sunnada laguna raaco saxaabada fahamkoodii inay tahay waxa ilaahay raalli ahaanshadiisa lagu gaaro jannadana lagu gala nabigana sidaas ayuu caddeeyey oo nabigu xadiidkii iftiraaq markuu ka hadlayey wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iftaraqat alyahuudu calaa 71 firqa waftaraqat innasaara على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يهود تضباطا يكوي يقيب سنتي أو فرقة نصارى تضباطا لغا يقيب سنتي أمدي تضباطا يصدح يقيب سمين لما النار تيسكو تغيان إلا مدمهاني يهي مركي لي رسولك وكو جوابي صلى الله عليه وسلم هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفرقة كسغناتا أنيقا iyo asxaabtaydu maanta diintan ku suganna qolada ku sugnaata qoladaas firqa naajiya ayaga bidcada ka badbaaday ayagaana naarta ka badbaaday xadiidka Abu Daawud iyo Ibn Majah iyo qeyrkii waa wariyay hadaba ahlu sunna wal jamaa dariiqooda masdaru talaqigood waa mid halkay xujada ka qaataan waa midaas aan soo sheegnay waana asalka ugu weyn ee ahlu sunna iyo ahlu bidc ku kala baxaan asalkaas oo kali ah hadday ashaacira ku khilaafto oo inoo cadaato insha allah way noo cadaa doontaahe intaasa ugu filan inaysan ahlu sunna meel ka soo gelin ahlu bidcna ay ka mid yihiin masdaru talaqi meesha laga qaato xujada
ahlu sunna waljamaaca masdaru talaqigoodu waa alkitaab wasunna waana calaamada ugu caansan oo ahlbidac uga socmeen sidaasayna yidhahdaan aimada sunnada aimada sunnada cadday aad u fara badan yihiin waxaa ka mid a imaam sunna alimaam abu muxamed alxasan albarbahariy wuxuu yidhi waclam raximaka allah ana addiina inamaa jaaa min qibali اllahi tabaaraka wa tacaala lam yuudac calىa cuquuli الrijaali wa aaraa'ihim wa cilmuhu cinda allahi wa rasuulihi falaa tattabic shayئa bihawaaka fatamraqa min addiini fatakruja min alislaam wuxuu yidhi alimaam barbarhaari ogow diinta ilaahay xaggiisay ka timid waa waxyi laguma dejin diinta caqliga ragga iyo aragtidooda cilmiga diinku waa alla iyo rasuulkiisa xaggiisa waxa ka yimid ha isku raacin shay oo ha ka diin dhigan hawadaada caqligaaga waxa naftaadu la qurxoon haddaad sidaas yeesho diinta allaad ka bixin diinta inaad ka baxdaan islamnimadaad ka bixin oo aad diintaada caqli ku dhisto hadalkaas wuxuu ku leeyahy kitaabka sharxu sunnaha safxada 66 sidaasoo kale aimada caddayda aad u badanya waxaa ka mid ah abu mudafar asamcaani abu mudafar asamcaani wuxuu yidhi asagoo caddaynaya asalka ama masderka ay xujada ka qaataan ahlu sunna waljamaaca iyo masderka ay ahlubidacu ka qaataan iyo meesha lagu kala baxay oo lagu kala tegay iyo sida ay yeelaan ahlu sunnuhu haddii caqligooda iyo ay iska hor yimaadaan naqliga saxiixa iyo caqliga saliimka sida saxda iskama hor yimaadaan haddaad aragto inay iska hor imaanayaan naqliga waa la fiiriya saxiix maya mise waa daciif hadday aayad qur-aan tahay hadda waaba saxiix xadiid hadduu yahay intuu saxiix noqdo caqli saliimu kama hor yimaado caqliga ka hor imaana isagaa jira ahlu sunna waljamaaca marka waxa u ah asal hadday arkaan qofka caqligiisa iyo inuu iska hor yimid naqliga saxiixa ah naqligay hormariyaan oo qaataan ahlulbidacana waxaa lagu yaqaanaa hadday caqligooda oo saqiimka ahoo jireen iyo ay iska hor yimaadaan naqliga adilada naqliga kitaabkii sunnada adilada kitaabkii sunnaday ka tagaan waxayna qaataan caqligooda sidaas a'imadoo caddaynayda dhegeyso alimaam abulmudafar asamcaani wuxuu yidhi in allaha abaa an yakuuna alxaqu waalcaqiidatu asaxiixatu ilaa maca ahli lxadiid ilaahay weyna waa diiday xaqa iyo caqiidada saxiixa ah ahlulxadiidka meel aan ahayn inay ahaadaan mar kasta xaqa iyo caqiidada saxiixa ah ahlusunna waljamaaca ahlulxadiid ayay la jiraan liannahum maxaa yeelay sababtay ku heleen xaqa iyo caqiidada saxiixa waa maxay masdaru talaqiga u nabadgalay meesha ay xujada ka qaataan wuxuu yihi liannahum akhaduu diinahum wa caqaa'idahum khalafan can salafin wa qarnan can qarnin ilaa an intahow ila ataabiciina wa akhadahu taabicuuna min asxaabi rasuuli illaahi wa akhadahu asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama markaasu wuxuu yidhi ahlu sunna waljamaaca ahlulxadiid waxay diintooda ka qaataan iyo caqiidadooda kuwa dambe waxay ka qaataan kuwii hore salafkiiy ka qaataan qalafkooda qarniba wuxuu ka qaataa qarnigii ka horreeyey ilaa ay ku intahoodaan taabiciyaalka inay ka qaataan taabiciyaalkuna waxay ka qaateen saxaabadii rasuulka saxaabada rasuulkuna waxay ka qaateen rasuulkii maxameda sala allahu calayh wasalam walaa dariiqa ilaa macrifati ma dacaa ilayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam annaasa min addiini almustaqiimi wa siraati alqawiim ilaa hada dariiqu aladii salakahu asxaabu alxadiid markaasuu yidhi ma jiro wadda lagu ogaa karo diinkii nabigu dadka ugu yeeray wadda lagu ogaa karaa ma jiro ee toosnaa iyo waddadii saxiixaheedoo toosneed ilaa dariiqaas maahane in naqli lagu ogaado saxaabada taabiciyaalka taabici dariiqaas in lagu ogaado maana dariiq kale lagu ogaa ma jiro sidaasu waa sida ahlu sunna waljamaaca waa sida asxaabulxadiidka ayaga masder halkaa u ahlulbidacu wax ka qaataan marka hore ahlulbidac sunaan caddaynayna kadibaan ashaacira meesha wax ka qaadato aan kutubooda kasoo guurayna wuxuu yidhi imaamu abulmudafar asamcaani wa amaa saa'iru lfiraqi kooxaha kale oo dhan oo ahlu sunnaha aan ahayn fa dalabu diina laa bidariiqihi diinkay raadiyeen dariiqa nabiga kama raadin liannahum rajacuu ilaa macquulihim maxaa yeelay diinka waxay ula laabtaan oy ka qaataan caqligooda wa khawaatirihim wa aaraa'ihim waxyaalaha quluubtooda kusoo dhacaya ra'yigooda fa dalabu diina min qibalihi diinka waxay ka raadiyeen caqliga xaggiisa maxay sameeyaan ahlulbidcu hadday iska hor yimaadaan caqligooda saqiimka ah iyo naqliga saxiixa ah caqliga saqiimka ahay qaataan naqliga saxiixana waa ka tagaan macnaha kitaabkii sunnaday ka tagaan caqligooday qaataan wuxuu yidhi abulmudafar asamcaani fa idaa samixuu shay-an min alkitaabi wa sunna
hadday maqlaan ahlulbidcu wax kitaabka alle iyo sunnada nabiga ka mid a caraduuhu calaa micyaari cuquulihim iskama qaataan kitaabka sunnada miisaanka caqligooday u bandhigaan fa in istaqaama qabiluuhu hadduu la toosnaado caqliyan ula toosnaado kitaabka sunnada waa yeelaan wa in lam yastaqim fii miisaani cuquulihim radduuhu haddii uusan caqliyan ula toosnaan kitaabka sunnaduna waa tuuraan waa ridiyaan maxay sameeyaan markay ridiyaan kadib maxay sameeyaan fa in idura ilaa qabuulihi xarafuuhu bita'wiilaati albaciidati walmacaani almustakraha faxaaduu can alxaqi wazaaquu canhu wanabaduu diina waraa'a duhuurihim wajacaluu sunnata taxta aqdaamihim tacaala allahu camaa yasifuun wuxuu yidhi ahlulbidaca markay caqliga qaataan naqligii kitaabkii iyo sunnadii hadday ridi karaan si fudud iska ridaan waxaan waa iska daciifay leeyihin laakiin hadday ku qasbanaadaan oo ay ridi waayaan waa xadiis mutawaatir ama waa aayad qur'aan waxay sameeyaan uu yidhi waa taxriifiyaan ta'wiilaad fog oo macnaha saxdaa ka fog iyo macaani nafta caafimaadka qabta ay dhibsato ayay ku fasiraan waxay dhahan saasaa lagu ta'wiilina xaqa saasay uga leexdeen diinkiina waxay ka tuureen dhabaryaalkooda gadaalkooda sunnadiina waxay yeeleen cagtooda hoostooda ilaahayna waa ka nastahanya waxay ku tilmaamayaan oo caqliga kula tilmaamayaan oo qur'aanka iyo sunnadii ay leeyihiin ilaahay laguma tilmaami karo oy diidayaan oy ta'wiilinayaan markaasay caqligooda waxay ku garteen ilaahay ku tilmaamayaan subxaana wa tacaala ahlu sunna waljamaca maxay sameeyeen haddii caqligiisa qofka ama kooxda naska ama naqliga uu ka hor yimaado maxay sameeyaan wuxuu yidhi wa ama ahlulxaq dadka ahlulxaqa ah fa jacaluu lkitaaba wa sunnata amaamahum kitaabka iyo sunnaday hortooda yeelaan wa dalabuu diina min qibalihima diintana waxay ka raadiyaan kitaabkii sunnada xaggooda wamaa waqaca lahum min macquulihim wa khawaatirihim caraduuhu cala alkitaabi wasunna wixii ku soo dhaca ee caqli ah ee khawaatir ah kitaabkii sunnaday ku miisaamaan fain wajaduuhu muwaafiqan lahumaa qabiluuhu wa shakaruu llaha xaysu araahum dalika wa waafaqahum calayh hadday arkaan caqligoodiina kitaabkii sunnada inuu waafaqsan yahay caqligaas waa aqbalaan ilaahayna waa uga shukriyaan maxayla asagaa tusay waxa weeyaan waxaan kitaabkii sunnada xaqa waafaqsan caqligooda allah tusay wain wajaduuhum mukhaalifan lahumaa tarakuu maa waqaca lahum wa aqbaluu cala alkitaabi wasunna wajacaluu wa rajacuu bituhmati calaa anfusihim wuxuu yidhi hadday caqligu ka hor yimaado kitaabkiiyo sunnada ahlu sunnuhu waxay qaataan kitaabkiiyo sunnada waxayna tuhmaan naftooda oo waxays yidhahdaan caqligaagaa jiran asagaa qalad ku tusaya ee kitaabkiiyo sunnadu waxaan xaq ahayn qofka kuma hanuuniyaan laakiin caqligiisu xaqna waa arki karaa baatilna waa arki karaa hadalkaas aad u cajiibka badan waxaa ka soo naqliyey alimaam abulqaasim ataymi alasbahani kitaabka la yidhaha alxuja fi bayaani almaxaja juska 2 safxada 237 ilaa 241 waxaa kaloo ka soo naqliyay alxaafid asuyuudi kitaabka la yidhahda sawn lmandiq safxada 230 sidoo kale wuxuu yidhi alimaam asamcaani abu mudafar asamcaani wuxuu yidhi waclam ana fasla maa baynana wa bayna almubtadica huwa mas'alat lcaql ogow qof kastoo muslimahow waxa noo dhexeeya annaga iyo bidcoolayaalka waa masalada caqliga mas'alada faasilada ah ee lagu garto qofka ama kooxda inaysan ahlu sunna ka mid ahayn iyo inay ka mid yihiin waa masalatu caqli oo sidee loogu gartaa hadduu qofku asal ka dhigto kitaabkii sunnada caqligii ka hor yimaadana ridiyo waa ahlu sunna kooxdaasuna waa ahlu sunna hadday dhacdo koox ama qof inuu asal ka dhigto caqliga kitaabkii sunnada ka hor yimaadana yidhaha waa ridina waxa weeyaan qofkaas ama kooxdaas waa ahlulbidac mas'aladaas waa mas'alada ugu muhiimsan oo lagu garto kooxda ama qofka waa waxa lagu garto masalada ugu muhiimsan weeye masalatul caqli yaa la yidhahdaa waa masalada ugu muhiimsan wuxuu yidhi fa innahum ahlulbidacu asasuu diinahum cala almacquul ahlulbidaca waxaa lagu yaqaan waxay ku aas-aasan oo ku dhisan diintooda caqliga wajacaluu litibaaca walma'huura lilmacquuli wajacaluu litibaaca walma'huura tabacan lilmacquuli itibaaca iyo ma'huurka macnaha kitaabka iyo sunnada waxay ka dhigaan mid caqliga raacsan sida caqligu tusaa lagu soo inxiraafina lagu soo leexina lagu fasira lagu ta'wiilina waxa asalaho wax lagu dhisaa waa kitaabka iyo sunnada sida cinda ahli sunna
cinda ahlulbidacna waxa asalka waxa lagu dhisa waa caqliga kitaabka iyo sunnadana waxay ka dhigaan caqligaas kuwa raacsan ahlu sunna wuxuu yidhi wa ama ahlu sunna qaaluu waxay yidhaahdeen alaslu fi diin alitibaac waxaa asal ah diinta waa itibaac waa qur-aankii sunnada in la raaco walcuquulu tabacu caqliyaalkana waxa la raba kitabka sunnada inay raacaan caqli waxaa sharaf ugu filan inuu kitaabka iyo sunnada fahmo kitaabka alle iyo sunnada nabiga inuu fahmo caqliga intaasaa sharaf ugu filan caqligii ka horyamada kitaabka iyo sunnada waa caqli saqiima wax sharafa ma laha taas waa in la ogaadaa hadalkaas cajiibka badan wuu sii waday oo wuxuu yidhi abu mudafar asamcaani walow kaana asaasu diini cala almacquuli lastaqna alkhalqu can alwaxyi wa can alanbiyaai salawaat ullaahi calayhim wala badala macna alamri wannahyi wala qaala man shaaa maa shaaa markaas wuxuu yidhi haddii diinku caqli noqo lahaa makhluuquba way ka deeqtoonaa lahaayeen waxyi iyo nabiyaal in loo soo diro macnaha dhamo amarka alle iyo nahyiguna waa buri lahaa qof walbaana wuxuu rabo ku hadli lahaa diinu hadday caqli ku dhisan tahay dadka mu'miniinta umaba banaanaadeen inay aqbalaan waxaan caqligooda aysan ku garan hadalkaas cajiibka badan oo ku kala saaraya ahlu sunna iyo ahlulbidac ahlu sunna kitaabkii sunnada asal u ah isagaasay ay ku dhisaan diinkooda caqliguna waa inuu kitaabkii sunnada raaca yidhahdaan ahlulbidacna asal waxa u ah caqliga kitaabkii sunnaduna waa inuu raaca yidhahdaan caqliga sidaasay yidhahdaan hadalkaas wuxuu weeya waxaa ka soo naqliyey alxaafid suyuudi fii sawni lmandiq safxada 235 imaamkaas hadalka cajiibka badan aan ka soo naqlinay abu mudafar asamcaani wuxuu dhashay 426 markay hijriyadu ahayd waa 1000 sano ka hor aad ayuu ay u amaaneen a'imada muslimiintu alxaafid dahabi wuxuu yidhi abu mudafar asamcaani alimaam alcalaama mufti khuraasaan shaykhu shaaficiya saasuu ku tilmaamay awsaaftaas aad u cajiibka badan ee kutusaya imaam inuu ahaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhi asagoo kala saaraya ahlu sunnaha iyo ahlbidaca fi lfurqaan bayna ahli sunnati wa ahlibidac shayga lagu kala saaro ahlu sunna iyo ahlulbidac qof walba waa inuu mas'aladan fahmaa waa masale aad u cajiib badan wuxuu yidhi lam yakun axadun wuxuu yidhi hadal hore ka soo socday wuxuu yidhi fahaakada kaana asaxaabatu waman salaka sabiilahum min altaabiciina lahum biixsaanin wa aimati lmuslimiin wuxuu yidhi sidaas darteed sidaas oo ah kitaabkii sunnada in la raaco ayay ahaayeen saxaabada iyo dadkii waddadooda raacay oo taabiciyaalka ah oo iyo dadkii wanaagga ku raacay ee a'imada muslimiinta ahaa فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi qof saxaabada ka mid a ama taabiciyaalka ama a'immadii muslimiinta ee saxaabada raacay ma ahayn mid ka hor keena nusuusta kitaabka iyo sunnada caqligiisa diintoodana kuma dhisi jirin wixii nabigu la yimid waxaan ahayn qof kastoo saxaabada ka mid a ama taabiciyaalka ama a'immadii muslimiinta ee salafka iyo khalafkii waddadaas raacay وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول markuu rabo mas'ale inuu ogaado diinta ka mid ah ama uu ka hadlo wuxuu fiiri jiray ilaahay wuxuu ka yiri iyo rasuulku wuxuu ka yiri faminhu yata'allamu kitaabkii sunnadu ka bala jiray wabihi yatakallamu kitaabkii sunnadu ku hadli jiray wabihi yanzuru wa fihi yanzuru wixii Allah iyo rasuul yiri uu fiiri jiray ويتفكر ايغا معنوده كفكري جيري وبه يستدل الله يرسل وحو يري استدليش جيري فهذا اهل السنه وكاسا اصل اهل السنه اهل البدع اصل كود محويه واهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الامر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اهل البدع حتى هذه ايات حديث دليشدان sida saxda ah ee xaqiiqadu ay tahay ahlul bid'a ma i'timaadaan wax ay rasuulka kala kulmeen sallallahu alayhi wasallam diinta rasuulka xaqiisa ay ka qaateen ma i'timaadaan bal yaj'aluna wuxuu yiri wa ahlul bid'a la yaj'aluna i'timaadan fil baatin wa nafs al amri ala ma talaqawhu 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bal calaa maa ra'awhu ow daaquuh waxay ictimaadaan ahlulbidaca waxay arkeen ama ay dhadhansheen waxa dowqooda waafaqa ama ra'yiyan caqli wa toosan taasay ictimaadaan ay ku dhisaan diinkooda wa khaasatan masaa'ilka caqaa'idka kadib sunnadii maxay samaynayaan qur-aankii sunnadii uma in wajadu sunnata tuwaafiquhu wa ilaa lam yubaaluu bidaalika
hadday arkaan sunnadu inay waafaqsan tahay macnaha waxaa loola jeedaa diinkii nabiga xaggiisa laga qaatay oo ah alkitaab wasunna hadday caqligooda waafaqdo waa hadday siday rabeen hadday waafiqi weydana uma aaba yeelaan kitaabkii sunnada uma aaba yeelaan siday ula dhaqmaan markay caqliga qaataan kadib laba maaday mid kula dhaqmaan kitaabkii sunnada laba maada mid kula dhaqmaan labadaas maada maxay yihiin wuxuu yidhi acraduu canhaa tafwiidan way iska tafwiidiyaan oo waa maxay leeyiin ilaahay rasuulkiisaa garanaayo ay leeyiin caqligan masaladan caqligaahan anagu qaadanay sidaasaana ku dhisnay masaladan caqiidada daahirkan oo naqligana waa tafwiidinayna ilahay rasuula garanayaan leena amase xarafuuhaa ta'wiilan waa taxriifiyaan waxay ta'wiil ku magacaabayaan oo ah macnaha in laga leexiyo daahirka ay yidhahdaan maya aayaddan iyo xadiiskan saas iyo saasaa loola jeeda han leena ilaahay gacan ma lehe quwo iyo nicmaa loola jeeda han leena ilaahay carshiga kama sarreeye waxaan leenahay waa ka haalib noqday saas waxyaalaha saas oo kaleeto waa ta'wiiliyaan macnihii aayaddu tusayda xadiiska way ka leexiyeen labadaasay mid kula dhaqmaan inay tafwiidiyaan iyo inay taxriifiyaan labadaas mid kula dhaqmaan markuu saas usoo sheegay wuxuu yidhi fa haada huwa alfurqaanu bayna ahli liimaani wasunna kaasaa u ah midka kala saara ahlu iimaanka ahlu sunnada iyo wa ahli nifaaqi walbidca dadka nifaaqa iyo bidcada ehelka u ah dadka iimaanka iyo sunnada ehelka u ah kitaabka iyo sunnada asal u ah caqligii ka hor yimaadana waa tuura dadka bidcada iyo nifaaqa ehelka u ahna caqligaa asal u ah kitaabka iyo sunnada ka hor yimaadaana inta ka jeestaan ay laba maada mid ku sameeyaan inay yidhahdaan waa tafwiidayna macnihiisa alla iyo rasuula garanaya inay iska yidhahdaan iyo inay ta'wiiliyaan oo macnaha daahirka ah oo nasku tusaya inta ka leexiyaan sida caqligooda tusaya ay waafajiyaan hadalkaas cajiibka wuxuu ku yidhi alimaam ibnu taymiya majmuucu lfataawa juska 13 safxada 62 ilaa 63 mas'aladaas waa mas'alada ugu koobaad oo waxa weeyaan ugu horeyda oo si cad qofka ugu kala gara karo ahlu sunna yay yihiin ahlulbidac se yay yihiin waa masaladaas waa masale aad u muhiima waxaan rabnaa marka inaan soo qaadano dhowr tusaale oo ahlu sunnaha aqwaashooda ka mid ah mithaal abwaabta diintu waa badan tahay alasmaa wa sifaat oo kale dhowr imaamaan ka soo qaadayna imaam axmed ibn xambalaan ka soo qaadanayna sida khalaal uu wariyey iyo keyrkiisba wuxuu yidhi xambal oo ardadii imaam axmed ka mid a wa sa'altu abaa cabdillaah imaam axmed ibn xambal waxaan weydiiyey can ilaxaadiidi allatii turwaa ina allaha tabaaraka wa tacaala yanzilu kula leylatin ilaa samaai dunya axaadiistan caddaynaydoo dhahayda oo nabiga laga warinayo oo dhahaysa ilaahay weynaa habeen kasta wuu soo degaa samaau dunya wuuna u soo degaa marka habeenka thuluth uu ka haro iyo axaadiista dhahayda ilaahay jannada lagu arkaa oo mu'miniinta ahlu jannaha arkayaan iyo axaadiista dhahayda wa in allaha yadacu qadamahu ilaahay baa lugtiisa saaraya naarta jahanama sida loogu gurayo dadka mutay ilaahay naguma ridee oo ay u leedahay hal min masiidi dheeraad ma jira oo weli ay u baahan tahay in dad kale lagu guro ayaa rabbulcaalamiin gomadiisa saaraya markaas inta isku soo dumanto buuxsanto ay leedahay intaana igu filan axaadiista sidaas sheegayda ka warraman inuu yidhi iyo wax lamidkaa fa qaala abu cabdillah imaam axmed wuxuu yidhi nu'minu biha waa rumaynaynaa wa nusadiqu biha waa rumaynaynaa walaa kayfa walaa macna kayfiye u sheegi mayno macnaheeda saa loola jeedaa dhihi mayno walaa naruddu minhaa shay-an wax kamida ridi mayno wa naclamu waxaan ognahay ana maa jaa bihi rasuulu wixii rasuulku la yimid xaqun xaq inuu yahay idaa kaanat markay ku timaado biasaniida sixaaxin sanadyaal saxiixa walaa naruddu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle ku ridi mayno qowlu hadalkiisa rasuulku asagaa yidhi allaa soo dega habeen walba asagaa yidhi jannadaa lagu arkaa asagaa yidhi gomadiisu saara naarta asagaa yidhi allah gacan leh asagaa yidhi ilaahay waa caroodaa asagaa rasuulku yidhi waa raalli noqda ilaahay wax rasuulku yidhi ku ridi mayno waa ka aqbalayna walaa yuusafu llahu tacaala ilaahayna laguma tilmaamo biakthara wax ka badan mimaa wasafa bihi nafsahu wixii uu naftiisa ku tilmaamay wax ka badan laguma tilmaamo oo wasafahu bihi rasuuluhu ama rasuulkiisu wuxuu ku tilmaamay bilaa xaddin walaa haaya iyadoon xad iyo haayo loo yeelin
laysa kamithlihi shayun ilahay wax lamiduhu ma jira oo addoommadiisa ma shabaho sifaadda ilaahay lagu tilmaamaa midii addoommada ma aha mid lamida wa huwa alla asamiicu waa alla maqal badan albasiiru aragti badan walaa yabluqu lwaasifuuna sifatahu kuwa wax tilmaama alla tilmaantiisa ma gaari karaan wa sifaatuhu minhu tilmaamihiisu xaggiisay ka ahaadeen walaa natacadda alqur'aana walxadiida alla markaan tilmaamayno qur-aanka iyo xadiiska ka gudbi mayno kama gudbayno caqli ku tilmaami mayno fa naquulu waxaan leenahay kamaa qaala siduu alla yidhi wa nasifu allan ku tilmaamaynaa kama wasafa nafsahu siduu naftiisa ku tilmaamay walaa natacadda dalika intaas ka gudbi mayno nu'minu bilqur'aani kullihi qur-aanka dhammaantiis waa rumaynaynaa ilaa qofkii aayaadkii gabal diiday ma wada rumayn qur-aankii muxkamihi wa mutashaabihi walaa nuziilu canhu sifatan min sifaatihi sifa sifaadiisa ka mida ka suuli mayno lishanaacatin shunicad fool xumayn oo ahlulbidacu ay fool xumeeyeen darteed ilaahay bay gacan u sugeen ilaahay lug weynuu leeyahay yidhaahdeen ilaahayaa meeshan soo fariista iyagu waa fool xumaynaya sida alla yidhi dhihi maayaan allah soo dega ee waxay dhihin allah soo fariista alla carshigiisa waa ka kor maray ahlu sunna markuu yidhaahdo iyagu waxay leeyihiin waxay yidhahdeen ilaahaya carshiga ku fadhiya waa ka jiiqjiiqsiiya hay yidhahdeen ay leeyihin waxaasoo dhan wadadaas ahlulbidacu ay ku hadlayaan waa wadadii ay mushrikiintu kula dhaqmi jireen muslimiinta markay muslimiintu war sheegaan beenay ka sheegi jireen mushrikiintu ahlulbidacuna ahlu sunnaha sidii been uga sheegaan allah ku fadhiya kursiyaanaan dhihin allah carshi ku fadhiya maanaan dhihin allah waxa weeye sida adoon usoo degaanaan dhihin waxaan idhi sida alla iyo rasuul yidhaahday hadalkaas cajiibka badan waxaad ka fiiridaa kitaabka la yidhah damu ta'wiil oo uu iska leeyahay cabdullaahi ibni axmed ibni qudaama dabcada daaru salafiya dabcada safxada 22 wax alla waxaas ahlulbidcu leeyihiin waa been allah xagga ku fadhiyaanaan dhihin ilaahay waxa aan ku tilmaamay alla iyo rasuul waa inta alla iyo rasuul alla uu isku tilmaamay rasuulkuna uu allihiisa ku tilmaamay sidaasoo kaleeto nucaym ibn xamaad wuxuu yidhi alkhusaaci shaykhii bukhaari weeye imaam albukhaari shaykhiisii wuxuu yidhi man shabaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafara qofkii ilaahay ku tilmaama qofkii ilaahay ku shabaha wax makhluuqiisa ka mida waa gal addoommada ilaahay abuurtay iyo ilaahay qofkii isku shabaha waa gal waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafara qofkii diida waxa ilaahay naftiisa ku tilmaamana waa gal ilaahay weynaa diiday falaysa ma wasafa allahu bihi nafsahu ow rasuuluhu tashbiih ilaahay wuxuu isku tilmaamay in lagu tilmaamo ama wixii nabigu ku tilmaamay lagu tilmaamaa tashbiih maahan ee waa xaqi ilaahay lalakaa'i ka fiiri juska 3 safxada 532 ka fiiri marka haddaad sida alla yidhi tiraahdo oo tiraahdo alla yadu leeyahay alla waa soo degaa alla carshigu ka sarreeya aadan ka gudbin inta alla iyo rasuul sheegeen tashbiih ma ahanu ku leeyahay imaam albukhaari sheekhiisu nucaym ibn xamaad imaam tirmidhi kitaabkiisa sunanka kitaabu zakaat baabka maa jaa fi fadli sadaqa baabkaas xadiiska 661 iyo xadiiska 662 markuu sheegay wuxuu yidhi xadiiska marka waxaa ku jira lafdi ah sifo ilaahay isku tilmaama inuu gacan midig la leeyahay ayaa ku jira oo xadiiska waxaa ku jiray maa tasaddaqa axadun bisadaqatin min dayibin walaa yaqbalu allahu ila dayiba ilaa akhadaha araxmaanu biyamiinih qof ma sadaqayso sadaqa shay xalaal ah hanti xalaala kama sadaqaysto ilaa ilaahay ma aqbalo waxaan xalaal ahayne ilaa hadduu sadaqaysto ilaaha ku qaadaya midigtiisa xadiiskaasa ku jira wuxuu yidhi waqad qaala kayru waaxidin min ahli lcilmi in badan oo ahlcilmiga ka mid ah waxay yidhaahdeen xadiidkan iyo waxa shabaho riwaayadaha sifaadda ilaahay tilmaama ah wa nuzuuli rabbi inuu soo dego tabaaraka wa tacaala kula leylatin ilaa samaa dunya habeen kasta samaa dunya inuu soo dego axaadiista tilmaamaydoo kale waxay yidhaahdeen qad habatat riwaayaat axaadiistu way sugnaatay fi hada xadiiskan wa yu'manu biha waa la rumaynaa walaa yutawahamu laysmoodsiima oo sifada ilaahay uu sheegto ama yamiinta ah ama qadamka ah ama nuzuulka ah ma rumayn qofki yidhahdo anugu sidaas inay u egtaan u maleey ama ismoodsiiyey qofkaas waa shabahay waana kaafir laakiin ayadoon la ismoodsiin sinna aa la leeyahay alla sifadaas oo yamiinta ah waa leey walaa yuqaalu kayfana la dhihi ma wuxuu yidhi haakadaa ruwiya can maalik ibnu anis wa sufyaan ibnu cuyayna wa cabdullahi ibnu mubaarak a'imadii muslimiinta saasaa laga wariyey oo ah imaamu maalik imaamu shaafici sheekiisii sufyaan ibnu cuyayna cabdullahi ibnu mubaarak a'imadii salafu saalix saasaa laga wariyey oo waxay yidhaahdeen axaadiista nuucaana amiruuhaa bilaa kayf siday u timid u marsiiya kayfiya idinkoon u sheegin markaasuu yidhi wahaakadaa qowlu ahlilcilmi min ahli sunna waljamaca sidaas weeye hadalka ahlucilmiga ahlusunna waljamaca
sifo kasta oo ilaahay isku tilmaamay way ku tilmaamaan ayagoon addoommada ku shabahayn kayfiyana u sheegayn sifo kastoo nabigu ilahay ku tilmaamay way ku tilmaamaan ayagoon kayfiye u sheegayn makhluuqana ku shabahayn kow ahlbidaca khilaafsan oo jahmiyada iyo qayrkood maxay sameeyaan wuxuu yidhi wa ama aljahmiyatu fa ankarat hadihi riwaayat axaadiistan way inkirtay jahmiyadu wa qaaluu waxay yidhahdeen hada tashbiih in la yidhaha ilaaha soo dega ilaaha gacan leh waa tashbiih saasay yidhahdeen wuxuu yidhi waqad dakara allahu allahna ku sheegay caza wajalla fii kayri mawdicin meel waxaan ahayn ee min kitaabi ka mida alyadda gacan meelo badan oo kitaabkiisa ka mida allah ku sheegtay inuu gacan leeyahy inuu maqal leeyahy inuu basar leeyahy allah ku sheegtay fata'awalat iljahmiyatu hadihi alaayaat aayadahaas jahmiyadu way awishay fafasaruuha waxay ku fasireen calaa kayri maa fasara ahlucilmi wixii ahlucilmigu ku fasireen waxaan ahayn ay ku fasireen wa qaaluu waxay yidhaahdeen jahmiyadu in allaha lam yakhluq aadama biyadih ilaahay gacantiisaba kuma abuuray nebi aadam waana qur-aanku alla ku sheegay gacantiisa ku abuuray oo limaa khalaqtu biyadaya war shaydan maxaad ugu sujuudi weyday axadkaan aan labadeyda gacmood ku abuuray way diideen jahmiyadu waxaas maxay yadda ku fasireen jahmiyo wa qaaluu waxay yidhahdeen ina macli lyaddi alquwa yadda macnaheeda waa quwa illa anagay niri markay diidaan waa awilaan saasay yidhahdeen u yidhi marka haddaad aragto yad lagu fasirayo quwa ama nicma oo sifo ilaahay sifo ilahay oo saas loo awilaa waa dariiqii jahmiyada waa inaad ogaataa wa qaala isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahaweyh wuxuu yidhi inamaa yakunu tashbiih horta goormuu noqona maxaa tashbiiha maxaasan tashbiihayn hadalkan waa hadal aad u qaaliya dhegayso wuxuu yidhi tashbiih waxaa ah idaa qaala qofku markuu yidhahdo yadun ka yadin gacan oo gacanta addoommada lamida markaasuu ilaahay ku shabahay addoommada marka uu yidhaahdo yadun mithlu yadin markuu yidhaahdo yadun ka yadin o mithlu yadin o samcun ka samcin o mithlu samcin hadduu yidhahdo gacanta addoommada lamida ama maqalka addoommada lamida markaasuu shabahay fa idaa qaala samcun ka samcin o mithlu samcin fa hada tashbiih wa ama idaa qaala hadduu qofku yidhaahdo kamaa qaala allahu tacaala sidii alla yidhi oo uu yidhaahdo yadun alla gacanuu leeyahay wa samcun maqaluu leeyahay wa basarun araguu leeyahay walaa yaquulu kayfiyana uusan dhihin walaa yaquulu mithlu samcin oo uusan dhihin addoommada maqalkoodu la mid yahy ama yadooda fa haada laa yakunu tashbiiha kaasu tashbiih maaha wa huwa kamaa qaala allahu waaba sidii alla yidhi tacala sarey fii kitaabi kitaabkiisa ku yidhi laysa ka mithli ilaahay oo kale shay-un waxba ma ahan shay ilaahay lamidu maba jiro sifaadda ilaahay loo sheegaa tii addoommada ma ahan wa huwa samiic albasiir ilaahay maqal iyo aragna waa leeyi fiiri ilaahay weyna maqal iyo aragu isku sugan maqal iyo aragna addoommadaba waa lagu sifeeyaa markaasu haddana wuxuu yidhi addoommada ilaahay ma shabaho wax ka mid a oo shay u ilaahay shabaha ma jira halkaas maxaa kuu caddaaday ilaahay in addoommada lagu shabahaa waa ilaahay weynaa amarkiisoo la diiday qur-aankoo la diiday in sifada ilaahay sheegto la diidaana waa ilaahay kalaamkiisii oo la diiday iyo qur-aankiisii hadalkaas halkaasu ku dhamaaday imaamu tirmidi waxaad ka fiiridaa xadiidka 661 ilaa 662 markuu labadaas xadiis dhameeyo ku daba xiray matniga halkaas waxaan soo ogaanay masderka ay wax ka qaataan ahlu sunna wal jamaa asalka ay ku taagan yihiin iyo asalka ahlu bid'ah wax ka qaataan ashaaciro marka ma ahlu sunnay kamid tahay oo caqiidadeeda waxay ka qaadataa kitaabka sunnada mase ahlu bid'ah ay kamid tahay oo caqiidadeeda aqliga ka qaadataa kutubtooda ka soo guureyna meesha ay iyagu wax ka qaataan ayagaan weydiinayna waxaan leenahay war halkaad wax ka qaadataan waay ahlu ashaacira al-ashcariya waxay ka qaataan caqiidadooda caqliga asagayna diinkooda ku dhisaan haddii uu ka hor yimaado naqliga oo ah kitaabkii sunnadana laba waday kula dhaqmaan inay yidhahdaan macnaheeda alla iyo rasuula garana oy tafwiidiyaan iyo inay ta'wiiliyaan kutubahoodan ka soo qaadayna fakhrudiin uraazi imaamkooda labaad weeye ee ugu weyn a'imadooda markii abulxasan ashcari laga soo tago abulxasan ashcarina insha allahu sidaan aakhirka muxaadarada ku sheegi doono waaba ka toobadkeen caqiidada imaamka ugu weynee labaad fakhrudiin uraazi weeye kitaabkiisa leedahay asaasu taqdiis wuxuu ku yidhi fasalka 32 ka fiir wuxuu yidhi hadalkan hadal aad cajiib badan oo qof walba ugu filan ashaaciro waxay tahay inuu ogaado wuxuu yidhi iclam ana dalaa'il alqaطciya alcaqliya hadalkoodu saas u bilowda adilada go-an ee cadcad ee caqliga ah uu yidhi idaa qaamat calaa hubuuti shayin uma wajadnaa adilatan naqliyatan yushciru daahiruhaa bikhilaafi dalika hadday adilada caqligaahu ku tusto shay inuu sugan yahay oo aan ogaano adilada naqliga waa kitaabkii sunnada inuu daahirkeedu tusayo sidii caqligu tusay wax khilaafsan fa hunaaka laa yakhlu xaalu min axadi umuurin 4 afar arrimood kama baxsanaan karto arrintu
afar un baa la suuraysan karaa. midda ugu horayda caqligii iyo waxa iska hor yimid naqligii. ima an yasduqa muqtada alcaqli wannaqli fayalzamu tasdiiqu naqiidayn. in la yidhaahdo caqligu wuxuu tusaana waa sax, kitaabka sunnada waxay tusaana waa sax, waana laba shay iska soo horjeeda. mithaal, caqligii jiranaaya wuxuu tusay ilaahay samaa dunya uma soo dego thuluth leyl akhiir. kitaabkii iyo sunnadiina waxay tusaayaan rabbulcaalamiin inuu soo dego. maxaa yeele xadiiska saxiixa tusaa, xadiiska saxiixa in la qaatana kitaabka alla amray. way iska hor yimaadeen, maxaa la samayn? haddii la yidhaha labaduba waa sax oo ilaahay waa soo degaa sida sunnadu sheegayda waa sax, ma soo dego sida caqliga jiranu sheegayaana waa sax, wax dhici kara maaha ilaa waa tasdiiqu naqiidayn. midda labaad waa in la yidhaho yiri wa ima an yabdula fayalzamu takdiibu naqiidayn. in la yidhaahdo kitaabka sunnadu waxay tusaayaana sax maaha, caqligu si tusaana sax maaha, ayaduna waa baatil yiri, waa mustaxiil, maxaa yeele waa takdiibu naqiidayn. tan saddexaad wuxuu yidhi waa in la yidhaahdo an yasduqa adawaahiru naqliya. in la yidhaha kitaabkii sunnadu daahirkoodu siduu tusaayo saasaa saxda oo run ah. sida wayakdiba dawaahiru lcaqliya, caqliga daahirkiisu siduu tusaayana waa been, wadalika baatil wey. in la yidhahdo caqligu siduu tusaayaa been ah, sida kitaabkii sunna tusaayaana sax ah oo run ah, waa baatil wey. muxuu ku baadil gareeyey? fiiriya, waa meesha asalka dalaalku ka yimide. wuxuu yidhi لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جوزنا بالقطع في الدلائل القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم يثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وإنه باطل. wuxuu yidhi sababta keenayda inaan nidhaahno waa baadil in la yidhahdo daahirka naqligaa run sheegay, caqligaa been sheegay, sababta ay baadil u tahay waxa weeye annaga suurtagal nooma ahanba adilada naqliga inaan garanno saxnimadooda ilaa markaan garannoon caqliga ku garanno allah iyo sifaadiisa iyo sida mucjisada nabiga runtiisa ay u tusaydo. taasoo dhanna caqliga lagu garto. ilaahay caqligan ku garannay, sifaadiisa caqligan ku garannay, mucjisada nabiga runtiisa tusayda caqligan ku garannay. haddaan marka caqligaa been sheegay nidhahno kitaabkii sunnadaa saxan, caqligiiyaa mutaham noqona oo aan qowlkiisa la aqbali karin. hadduu sidaas caqligu noqdana waxa weeyaan adiladan kitaabkiiyo sunnadu inay wax faa'iideydo meesha waa ka baxeen. haddaba waxaa halkaas ku sugnaaday haddii wax laga sheego layidhaha caqligaa qaldamay, caqliga in la duro layidhaha waa qaldamay, si naqliga loo qaato waxaa ka dhalanaa caqliga iyo naqliga isku mar in labadiiba la duray. arrintaasuna waa baadil. walamaa badalat ilaqsaamu lam yabqa ila raabic. saddexdaasu hadday burtay wax ma harin ilaa kii afraad maahan. oo muxuu yahay midka afraad? marka midka afraad oo saxda waxa weeyuu yidhi fakhrudiin uraasi an yuqdaca bimuqtada dalaa'il alcaqliya alqaatica. waa in la gooyo, la rumaysto, la caqiideeyo sida adilada caqliga tusaydo. maxaa lagu sameynaa marka kitaabkii sunnadii? wuxuu yidhi fakhrudiin uraasi biana hadihi dalaa'il annaqliya ima an yuqaala inaha kayru صaxiixatin aw yuqaala inaha صaxiixatu ila ana almuraada minha kayru dawaahiriha. wuxuu yidhi in la yidhaha saxiix maaha haddaan la dhihi karin oo aayad qur'aan ma xadiis saxiix mutawaatir oo kale hadday noqoto maxaa lagu samaynaa? wuxuu yidhi in la yidhaahdo waa saxiix maan iyo in la yidhahdo saxiix waa tahay laakiin macnaha daahirkaa looma jeedo. markaasaan laba markaas u kala qaadayna. fain jawasna ta'wiila ishtaqalnaa calaa sabiili tabaruci bidikri ta'wiilaat. wuxuu yidhi haddaan ta'wiil banayno waxaan iskaga tabarucaynaa inaan ta'wiilaadka sheegno saas iyo saas iyo saasaa lagu ta'wiilinaan leenahay si tafsiila. haddaanan ta'wiilka banayna fawadna alcilma biha ila allah, cilmigeeda ilaahay baa garanaya iska leena, laakiin caqligaasaan goynayna. caqligaas in la gooyo adiladii kitaabkii sunnadana ama la tafwiidino ama la ta'wiiliyo fa hada huwa alqaanuun alkuliy almarjucu ilayh fi jamiici almutashaabihaat. wuxuu yidhi kaasu waa qaanuunka guud ee loola laabanayo xaggiisa dhammaan mutashaabihaadka ku yii. wuxuu mutashaabihaadka ku sheegayaana waa sifaadda adilada tusayda. taas waa fakhrudiin uraasi. waxaan soo qadaynaa kutubaha a'imadan ay akhristaan soomaalidan xataa sunusi kitaab uu leeyahy, kitaabka la yidhaha sharxu lkubra
wuxuu yidhi hadal cajiib badan wuxuu yidhi wa ama man zacama ana ariiqa ilaa macrifati alxaqi alkitaab wasunna wa yaxrumu maa siwaahuma waraddu calayh wuxuu yidhi qofka ku andacooda wadada lagu gara karo xaqa waa kitaabka iyo sunnada waxaan labadaas ahayn in xaq lagu raadiyaana waa baadil waxaa lagu ridinaahu yidhi waa la ridinaa ogow qofkii saas yidhah siduu leeyahy ana xujiyatahumaa laa tucrafu ilaa binadari alcaqliy kitaabkii sunnadu inay xujo yihiin oy xaq yihiin caqliga unbaa lagu garta wa aydan mideeda kale waxaan ku leenahay yuu yidhi faqad waqacat fiihima dawaahiru man ictaqadahaa calaa daahirihaa kafara cinda jamacatin aw ibtidac waxaa kitaabka iyo sunnada ku sugan daahiryaal adilada macno ay tusaydo daahir ay ku tahay daahirkaasna qofka caqiideeya uu gaaloobayo sida culummada gabalkood qabaan u yidhi ama uu bidcoobayo sida gobol kale qaban marka laba shayaan ku diidaynaa yidhi qofka yidhaha kitaabka iyo sunnada kale iyo diin ha laga dhigto oo xaqah lagu garto midka koobaad kitaabkii sunnada waxaan leenahay yuu yidhi caqligaana tusay inay xujo yihiin see marka caqliga inta loo turo ayaga loo qaadana ta labaadna kitaabkii sunnada waxaa ku jira macnaha daahirkooda haddii la caqiideeyo culummada gobolkood agtooda qofkaas uuba gaal noqonayo gaalna uu bidci ku noqonayo waa culummada ashaacirada waxaad ka fiiridaa sharxu lkubraa safxada 82 ilaa 83 hadalkaas sidoo kaleeto wuxuu leeyahy imaamu sulusi oo ashcari ah kitaabkaas laftigiisa oo sharxu lkubra wuxuu yidhi usuululkufri 6 gaalnimada usuusheedu waa 6 markuu 5 tiri wuxuu yidhi kii 6aad watamasuku fii usuuli lcaqaa'idi in lagu dhego usuusha caqiidada bimujaradi dawaahir